kala fadhigii 44aad ee golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shirgudoominaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinaya madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa maanta lagu ansixiyay siyaasadda qaran ee shaqo carbinta waxaana warbixin lagaga dhageystay xubno kamid ah golaha wasiirada ee Soomaaliland ugu horreynna waxa golaha warbixin la xiriirta amniga dalka ka jeediyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Mudane Maxamed Kayn Axmed oo ku dheeraaday xaaladda guud ee nabadgelyada dalka sidoo kale waxa goluhu dood dheer iyo falanqeyn ka yeeshay wax ka bedelka iyo kaabista xeerka shaqaalaha rayidka ee xeel lambar 132/2004 oo mar kale loo ballamay ansixintiisa waxaana goluhu ansixiyay siyaasadda qaran ee shaqo carbinta oo ay soo diyaarisay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland ugu dambeyntiina waxa golaha lagu soo bandhigay hirgelinta nidaamka waxwadan lahaanshaha dawladda iyo shacabka public private partnership waxaana goluhu u saaray guddi soo diyaarisa arintaasi Axmed Sagi Daahir Xasan warbaahinta qaranka qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa.